سلام قدب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فريسو. أبوك تنمو ورب العافمات كان. الحمد لله. إيجا ورن هوشي تستورك حقي مريسا. waxaan ku guda jirnaa iminka qaybihii ugu dambeeyay ee dhamaystirka dastuurka meel fiicanna way noo marayaan xaaji sheekh ciise oo kulku lagu weliyana isagana waa uu soo socdaa waa war fiican horta cabaasow wax weyn ayaa laga qabtay dib u eegista dastuurka waxna waa dhimayhiin waa sax soo gudub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعيسة. تتوراقي يا عباسيتي. صدق على فريسو. هيا عافمات كده. الحمد لله. قرية خان راقي يا دكتور عباس ما أنت وحنكون بلن سنين إن دوت أذك كي لأنه موضوع دستورك يدينته. ما حاس بدلي. شيخ عيسى أجندينا ما تبعوا كسليسين هاي دستورك يدينته. وايو وإن دستورك الله قاعدين عوربو. qaybaha bulshadana in laga qayb geliyaa si dastuurku u noqdo mid faafreeban ما شاء الله قدية دبوا إيش الدستورك إيو وزارة الدستورك با هول وين أو الوفانو أي خبتين وأيو وحا مهمة دستور رالي لقوذي هي أو كسليسن دينة إسلامك إن دلكين أويش dastuurka Soomaaliya qodobka 3 firqadiisa koobaad wuxuu leeyahay dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka Kariimka iyo sunnada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay qodob kasta iyo cutub kasta oo ku saabsan dastuurka waa in la falanqeeyaa inta aan la qorin وارنتها علماء الدين كصوماليات خرجت الدستور كأي كالين مقله كخاتين حدنا ديك وإيجست الدستور كأننا تلوين كأومهم سنة لقى خاتا وأنا وضع شقينا قلت ديك وإيجست الدستور كأي وزارة الدستور ما دام الدستور كان كسليسين هاي دينة إسلامك ولا جمع مارمان إن علماء قاتان كالنتا سوين ما دام بلشدو ودقيستان علماء وارنتها علماء الدين كصوماليات ثلاثة الدستور كأي ديك وإيجستي سبوا حكي خبتين هول بلارن وطلعوا صوبا أوله فإذا بلشو يمدخل mar haddii dastuurkeena uu ku salaysan yahay shariicada islaamka sharciisa iyo culimadiisa hawl badan ayaa u taal وارنتها دينتي إسلامك وحي أقوشها أمة كستحشيس تحديد إنها بيجان كرتا أما بقى يجاري كرتو لكن وحشروط هشيس كاسي إنيسن كجرين وحياة ولدكو أما بقى كهور إيمانا يا شريعة الإسلام dastuurkeena waxaa laga ilaaliyay qodob mugdi ku jira wuxuuna ku salaysan yahay shariicada islaamka iyo maqaasideeda inta culimadu iyo sharciga qaanadu yihiin hoggaanka dastuurka walla shaki kuma jiro in dastuurku si weyn loo faafreebayo annagu haddaan nahay guddiyada dastuurka iyo wasaaradda dastuurka waxaa naga go-an dhamaystirka dastuurka iyo ka ilaalinta dastuurka wax kasta oo shaki geli kara